بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ودرسيجين اللحاد oo duruustii musalsalka ahayd oo qisas al-anbiya. darsigeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur'aankiisa nagu leeyahay isagoo nooga qisoonayo nabiyullaahi ibraahim, wadkur fi lkitaabi ibraahima inahu kana sidiiqan nabiya. nabiyullaahi ibraahim khaliil raxmaan, allaha raxmaana khaliilkiisii ahaayo uu jeclaa. wuxuu ahaa rasuul ilaahay soo diray subxaanahu watacaala. nabi ibraahim wuxuu ka mid ahaa owlaaddii sam binu nuux ayuu ka mid ahaa. nabi ibraahim wuxuu ku dhashay meesha la yidhaahdo babil oo ardul ciraaq ka mid ah. qoladii halkaa degi jirtay ee uu nabiyullaahi ibraahim ka dhashay waxay ahaayeen qoom ilaahay u nicmeeyey subxaanahu watacaala. ummaddii ka dambeysay ayay ahayd qawmu saalix, nimankii reer thamuud la oran jiray. nimankii reer thamuud la oran jiray markii ilaahay halaagay oo ay baaba-een, nabiyullaahi saalix iyo mu'miniintii raacday waa kay ka hijroodeen meeshii lagu halaagay madaa-inu saalix la oranayay. dhinaca shaam xaggeedayna u hijroodeen. nabiyullaahi saalix markuu dhintay muddo badan ay ka soo wareegtay. ummaddii halkaa uu ilaahay subxaanahu watacaala u nicmeeyey wakti badan ay soo mareen, waxay yacni noqdeen haddana in ummaddii ay ka soo baxdo dad baadi ah oo marka aan ilaahay aqoonin. gaalnimo iyo fasaad iyo shirki ayaa bilowday oo dhulkii aada ugu faafay. waxaa markaa ka talinayay dhulkaas oo boqor u ahaa ninka namruud la yidhaahdo. namruud wuxuu ka mid ahaa 4 nin ee dunida milkisay, adduunyadoo dhan hal mar ka talisay ayuu ka mid ahaa. 4taa 2 islaam bay ahaayeen, waa nebiyullaahi sulaymaan iyo dulqarnayn. 2na gaalay ahaayeenoo waa namruud iyo bukhtunasar ninka la yidhaahdo. marka namruud wuxuu ahaa ninkaa boqorka ahee caniidka ee madaxa adag. gaal buu ahaa, dunidoo dhan dadka milkiyey ee gacanta loo geliyey buu ka mid ahaa. markay soo dhowaatay waktigii dhalashadii nabiyullaahi ibraahim yaa waxay ku yidhaahdeen qoladan yacni ahlu nujuumka oo xidigaha iyo waxaa fiiriyo ee munajimiinta la yidhaahdo. namruud bay waxay ku yidhaahdeen nin yahow, wiil la dhali doono oo qaryadaadan ku dhalan doono, dadkaagana kasoo dhex bixi doono, ka dhex dhalan doono, ayaa mulkigaaga dumin doono. waktiga markii la gaaro muddadaas, sanadkaas, bishaas markii la gaaro ayuu canugaa dhalan doonaa. waa inaad ogaataa. namruud wuxuu sameeyey markaas in uu tirakoob yacni ku sameeyey haweenkii uurka lahaayoo dhan, kulligoodna ilaa ay ka dhalayaan waardiye iyo ilaalo ayuu saaray. meel gaara ayuu ku hayay.
ilaa nebi ibraahim hooyadii mooyaane. nebi ibraahim hooyadii cid ogaata lama arag, uurkeedana cidna ma ogaanin. ilaahayna wuu ka qariyey subxaanahu watacaala inay ogaadaan. haweenkii markaa uurka lahaay oo dhan mid la arka markay dhasho, canugii ay dhashay hadduu wiil noqdo waa la dilayaa, waa la gowracayaa. nebi ibraahim hooyadii baa dhashay, gabar yar bay ahayd oo markaa horeyba aan ilmo u dhalin. fooshii markay qabatay duurka ayay u baxday, meel god ahoo duurka ayay ku dhashay. halkii ayay canugii ku qarisay ogana soo tagtay. halkaasay marba ugu tegi jirtay. ilaahay baa ku xifdiyey subxaanahu watacaala oo ku ilaaliyey. mar kastay u tagtana waxay la kulmaysaa, ay ku arkaysaa wax cajaa'ib ah. canugiioo isbeddel samaynayo, weynaanayo. inta uu canuga kale yacni maalin ku barbaarayo ayuu yacni bil intuu ku barbaaraa ayuu maalin ku barbaarayay. 15 bilood waa sanad iyo 3 bilood ayuu meesha ku jiray baa layidhi, oo ilaahay ku ilaalinaya subxaanahu watacaala. markaa wuuba weynaaday oo nin weyn oo kaamil ah ayuu markaa noqday. wuu ka soo baxay meeshii, ilaahay baana rasuul ka dhigay subxaanahu watacaala. nebi ibraahim markaa wuxuu u tegay ninkii yacni qoomkoodii ee uu ka dhex dhashay ee gaalada ahaa, asnaamta caabudi jiray. ninkaa naftiisu yani namruud la yidhaahdo, boqor buu ahaa. markii dambena ilaahnimuba sheegtay oo asaga naftiisaaba la caabudayey. qoomkiisii buu markaa dacwo ku bilaabay nabiyullaahi ibraahim. dacwada wuxuu ka bilaabay aabihii buu ka bilaabay, sida qur-aanku nooga warramayo, nooga qisoonayo. aabihii ayuu dacwada ka bilaabay. nebi ibraahim dacwada iyo waxa uu dadka ugu yeerayo waxay ahayd dacwada xaqa ah, diinta islaamka, yacni ilaahay keligii la caabudo. taasay ahayd. marka ilaahay qur-aanka noogu sheegayo uu leeyahay: ma kana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walakin kana xaniifan musliman wama kana min almushrikiin. nebi ibraahim yahuudi ma uusan ahayn, nasaarina ma uusan ahayn. wuxuu ahaa xaniif muslima ayuu ahaa. adyaanta baadilka oo dhan axad ka iishay buu ahaa, ee diinta islaamka u eeshay. qof ilaahay u hoggaansamay oo ilaahay rumeeyey oo ilaahay keligii caabudayey buu ahaa, muslim buu ahaa. wama kana min almushrikiin. waxaa ilaahay aayad kale ku leeyahay fi suurati alambiya: walaqad aatayna ibraahima rushdahu min qablu wa kunna bihi caalimiin. nebi ibraahim waxaan siinay hanuun iyo hidaayo ayaan siinay, oon horay u siinay, waa u qadarnay. wa kunna bihi caalimiin, waan ogeyn baa ilaahay leeyahay, annagaana u dooranay yacni rasuulnimada iyo diinta iyo waxaan ilaahay uu siiyey, annagaa siinay baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. nebi ibraahim markaa dacwadiisii buu bilaabay. aabihii buu markaa iyo ehelkiisii buu dacwadii ka bilaabay. aabihii buu la hadlay. aazar baa la oran jiray, inkastoo mufasiriinta qaar ay yidhahdeen aazar adeer buu ahaaye aabihii ma ahayn. laakiin mufasiriinta intooda badan aabihii baa lagu tilmaamayo aabihii buu ahaa baa la yidhaha. fi suurati maryam baa ilaahay nooga qisooday: wadkur fi lkitaabi ibraahima inahu kana sidiiqa nabiya id qaala liabihi ya abati lima tacbudu ma laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugni canka shay'a ya abati inii qad ja'anii min alcilmi ma lam ya'tika faattabicnii ahdika siraatan sawiya ya abati laa tacbud ishayطaan ina shayطaana kana liraxmani casiya ya abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min alraxman fatakuna lishayطaani waliya. wuxuu leeyahay nabiyullaahi ibraahim isagoo aabihii u naseexaynayo, xikmad iyo mawcido xasano ana isticmaalayo, si naxariis leh iyo ixtiraamka waalidnimada oo uu ku leeyahayna ilaalinayo. aabbow ha caabudin waxaan waxba maqlaynin, waxna aan arkaynin, waxna aan kuu taraynin.
ilaahay wuxuu isiiyey buu yidhi aabow cilmi baa ilaahay isiiyey, xikmad iyo nabinimo ayaa ilaahay siiyey nebi ibraahim, ee isoo raac waan ku hanuuninayaa, waddo toosan baan kugu hanuuninayaa. aabow shaydaanka ha caabudin, shaydaanku ilaahay buu caasiyey subxaanahu watacaala, lacnad baana ku dhacday. haddii aad yacni shaydaanka u iilato oo aad yacni xaqa raaci weydo, cadaab ilaahay inuu yacni kugu dhaco, ku asiibo ayaan ka cabsanayaa. nabiyullaahi ibraahim aabihii buu u naseexeeyey, u caqli celiyey si xigmada oo ixtiraam iyo naxariis leh ayuu aabihii dacwadii ugu fidiyey. aabihiina wuu diiday, ilaahay uma qadarin inuu hanuuno. jawaab adag iyo hadal adag buu kala hor yimid oo qaala wuxuu yidhi araaqibun anta can aalihati ya ibraahim lain lam tantahi laarjumanaka wahjurnii maliya. ibraahimow ma waxaad nacaysaa ilaahyahaygii aan caabudayay, miyaad nacaysaa oo wax ku sheegaysaa? haddaada arrintaa ka joogin waan ku rajminayaa, dhagax baan kugu dilayaa. iga tago, iga fogow. inaan ku dilo iyo inaad iga fogaato wax ka dhexeeyaa ma jiro. haddaad iila timid inaad maaragtay cibaadadaydii iyo ilaahyahaygii aad wax ka sheegtay, hadalkaa adag markuu ku yidhi nabiyullaahi ibraahim lama uusa dagaalin, waxuna muusa oranin. ilaahay wuxuu noo sheegay inuu yidhi qaala salaamun calayka saastakfiru laka rabbii inahu kana bi xafiya. salaamun calayk, waan ku nabadgelinayaa. salaamu mutaaraka la yidhahdaayo, yani wax dhiba xaggayga kaaga imaan maayo aabow, saastakfiru laka rabbi, ilaahay baan dhaafid kuu weydiinayaa inuu ku hanuuniyo oo gaalnimada iyo xumaanta ilaahay kaa hanuuniyo. istikfaartan waxaa lagu fasira ay leeyihiin mufasiriintu, yani adoo gaala, yani isagoo gaala ilaahu u dembi dhaaf maaha macnaheedii, oo waxa weeye ilaahu gaalnimada ka hanuuni oo yani tawbadiisa iimaan ka dhig oo ka tawbad aqbal oo iimaanka ku hanuuni. taas weeye dhaafidda uu ilaahay u weydiinayo. innahu kaana bi xafiyan, ilaahay kii ii naxariisanayo oo ii dhimrinayo weeye. nabinimada iyo yani cilmiga iyo hidaayada ilaahayga isiiyey weeye. ilaahay waa midka ii naxariisanaye, adigana ilaahay baan kuu baryayaa. saasuu markaa ku yidhi. qoomkiisi buu markaa haddana dacwadii u bandhigay, eheladiisii buu u bandhigay. nabiyullaahi luud ayaa rumeeyey oo adeer uu ahaayo walaalkii uu dhalay. nabi luud ayaa rumeeyey. marka qoomkii kaloo dhan intoodii badnayd, dad badan ma raacin, way ka hor imaadeen. markay dacwadii diideen oo uu kari waayeyna wuxuu ku yidhi waactazilukum wamaa tadcuuna min duuni illah waadcuu rabbii casaa an laa akuna biducaa'i rabbii shaqiya. waan idinka fogaanayaa xumaanta iyo baadilka aad ku jirtaan iyo shirkiga iyo gaalnimadiina waan ka fogaanayaa. waxa aad caabudaysaan oo ilaahay keyrkiia waan ka tegayaa, anigu rabbigay baan caabudayaa. ilaahay subxaanahu watacaala ducadiisa iyo baryadiisana ku guul daraysan mahayo, ilaahay wuu iaqbalayaa. saasuu markaa nabiyullaahi ibraahim yuu qoomkiisii ku yidhi. nebi ibraahim qoomkiisii markii ay dacwadii diideen oo ilaahiyihii ay caabudayeen iyo asnaamtoodii unay ku madax adag yihiin, wuxuu go-aansaday inuu asnaamta jejebiyo oo u burburiyo. mar kasta wuu la hadlayaa, ilaahyahan aad caabudaysaan iyo asnaamtan aad caabudaysaan waxba kama jiraana iska daaye, cibaado maysan mutaysanin. taasaa iyaguna ku adkaanayso oo waxay leeyihiin yacni asnaamtan cibaadadooda ma daynayno, aabbayaalkeen baan ka soo gaarnay. saasay leeyihiin. nebi ibraahim wuxuu ku leeyahay ma hadihi tamaasiilu alatii antum lahaa caakifuun id qaala liabiihi wa qowmih ma hadihi tamaasiilu alatii antum lahaa caakifuun. aabihii iyo qoomkiisii oo dhan buu la hadlayaa.
dacwadii buu caam ugu fidinayaa maxay tahay asnaamtan aad caabudaysaan oo dulfa fadhidaan qaaluu wajadnaa aabaa'ana lahaa caabidiin aabbayaalkeen baan kasoo gaarnay iyagoo caabudayo qaala laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalin mubiin baadi baad ku sugan tihiin adinka iyo aabbayaalkiinba baadi baad ku sugan tihiin qaaluu aji'tanaa bilxaqi am anta min allaacibiin niyahow ma xaq baad noo sheegaysaa ma wax runaad ka hadlaysaa mise waad ciyaaraysaa ma ilaahyaheena aad caabudaynay baad leedahay baadil weeye qaala bal rabbukum rabu samaawaati waalardi aladii fadarahun wa ana calaa dalikum min ashaahidiin rabbigiin waa samaawaadka rabbiga abuuray ardada rabbiga abuuray ee khalqay wa ana calaa dalika min ashaahidiin anigu kaasaan aaminsanahay kaasaan rumaysanahay waxan aad caabudaysaan waxba kama jiraan markay tii qaadan waayeen wuxuu go'aansaday nabiyullaahi ibraahim inuu asnaamta jejebiyo bal inay wax gartaan oo asnaamtatan hadday ilaahye yihiin naftooday difaaci lahaayeen wixii dhibaatada u geystay bay xataa sheegi lahaayeen hadday naftoodina difaaci waayaan wixii dhibka u geystay xataa ayna sheegi karin bal inay wax gartaan oo iskaga tagaan yo wuxuu go'aansaday inuu ilaahyaha yani asnaamta la caabudayo uu jejebiyo u burburiyo maalin ay feesto leeyihiin oy banaanka u baxayaan ayuu markaa ku aadiyey markay ka tagaan inuu yani asnaamta burburiyo markii la baxayay oo dadkii oo dhan ay wada baxeen oo banaanka la aaday ciidda loo baxayay ayaa la yidhi ibraahim uu soo bax maanta waa maalin feesta ah oo ciidahoo la baxayo la cibaadaysanayo soo bax bay yidhaahdeen markaasuu yidhi ma bixi kara anigu maanta fa nadara nadratan fi nujuum faqaala inii saqiim xidigaha ayuu sidaa u fiiriyey qoomkaas ayaa yaqaanay xidigaha waxay aaminsanaayeen xidigaha ayay aaminsanaayeen oo kuwa munajimiinta ahee xidigaha wax ka sheego kuwa hadalkooda unbay ictiqaadsanaayeen oo la weynaa marka xidiguhu fiiriyey oo ayagu markaa xujadii ku oogayaa waan xanuunsanahay buu yidhi maanta hadalkaa been ma noqonayo nebi ibraahim ma xanuunsanayne xanuunka uu sheegayo waxa weeye wuxuu ka xanuunsan yahay ilaahay kayrkii la caabudayo ilaahyahan la caabudayo ciidda baadilkaa iyo yani cibaadada baadilka ahoo la samaynayo kaa weye miduu ka xanuunsan yahay waa hadal runa markaas hayla ambiyadu been ma sheegaan sidqi baa u waajibay fa nadara nadratan fi nujuum faqaala inii saqiim fatawallow canhu mudbiriin way ka tageen markaas markay baxayeen oo dadkii ugu dambeeyey uu baxayay ayaa waxay maqleen qaarkood isagoo u dhaaranayo asnaamtii u dhaaranayo watallaahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin ilaahay baan ku dhaartay asnaamtiina inaan jejebin markaad baxdaan marka yani kuwii ugu dambeeyey baxayay ama qaar ka mid a isagu markaa olama qasdin inuu ayaga ogeysiiye yani isagoo dhaaranaya unbay maqleen kuwa ayaa maqlay fajacalahum judaadan ilaa kabiira lahum lacallahum ilayhi yarjicuun asnaamtii buu kusoo laabtay oo kulli wuu burburiyey yani guri weyn oo qasri weyn baa asnaamta loo dhisay oy asnaamtu ka buuxeen yani wax kasta oo yani hadiyaa loo keeni jiray yani jawhar kala duwan hadiyaad kala duwan taqarubaad bay u samaynayaan oo ilaahyahooda loogu soo dhawaanayo wixii baa sidaa u agdhooban xataa cuntaa la keenay oo maalintaa feestada ah waxyaalaha cuntooyinka la cunay iyo waxyaalaha macmacaanka iyo waxa la cuno o dhan baa lasoo hordhigay oo markaa loo dhigaya wax ma cunayaan waa dhagxaan meesha iska taagtaagan iyo qoryo iska fadhiyo meesha waxaasaa lasoo hordhigaya cuntadii baa sidaa u hortaallo wax walbaa hor yaallo marka nebi ibraahim wuu og yahay waxan inayna wax cibaado mutaysta aysan ahayn wax waa cunayo nafle ma aha wax hadlayo ma aha xujadii uu marka ku oogaya waa sida ay ictiqaadinayeen ayaga intuu u yimid buu ku yidhi alaa ta'kuluun war maa cuntada cuntaan la idiin keenay ee idin hor taallo wax u jawaabaya ma jiro
maa lakum laa tandiquun, war mixiina la hadlaynin waxaa laydinku yani laydin keenay ee laydiin soo hadiyeeyey ma cuntaan? ma dhagxaan baa hadlayo, waa dhagxaan cidlahoo meesha la dhigay. faraaqa calayhim darban bilyamiin, markaasuu faaskiisii u qaatay, faas uu haystay oo uu soo diyaarsaday yuu markaa u qaatay, kulligood buu burburiyey. fajacalahum judaadan, burbur buu ka dhigay, wuu wada jarjaray. ilaa kabiira lahum, kii u weynaa, sanamkii u weynaa ayuu reebay. ilaa kabiira lahum lacallahum yarjicuun, kii ugu weynaa bas uu reebay, bal inay usoo laabtaan. hadhow xujaduu rabaa inuu ku ogo. asnaamtii kale haddii la laayey, haddii la burburiyey, bal ninkan yani asagaa meeshii joogay goobjoog ka ahaaye weydiiye inuu yidhaahdo xujada ku ogo, yuu markaas yani u daayey kaas. faaskiina garabka ayuu u suray. markaasay soo laabteen. markay soo laabteen oo day banaankoodii intay tageen, feesadii kasoo laabteen, ay ducadoodii iyo waxoodii ay soo ciyaareen, ayay yimaadeen si ilaahyaha yani agtooda loogu ducaysto, si loo salaamo, si loo barakaysto. markasta waa loo imaanayaa. hadday imaadeenba yani ilaahyihi kulli waa la burburiyey. asnaamtii waxba kama taagno, hal mid ayaa ka taagan. qaaluu man facala hada biaalihatina inahu la min aldaalimiin, war ilaahyahanagi yaa sidaan ku sameeyey, waa qofna dulmiyey oo daalim ahoo nagu xadgudbay. qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim, kuwii markaa ugu dambeeyey hadalkiisa maqlayey ayaa waxay yidhahdeen waxaan maqlaynay nin dhalinyaro ah oo ibraahim la yidhaahdo oo ilaahyaha u dhaaranayo. yadkuruhum, wuu sheegayey, macnaha wuu u dhaaranayay. qaaluu faatuu bihi calaa acyuni nnaasi lacallahum yashaduun, markaasay qayladhaantii baa dee meel kastaba gaartay. boqorkii ugu weynaa ee namruud ahaa baa loo tegey, madaxdoodii oo idil baa loo tegey, ilaahyihii yani la barakaysanayay, ilaahyihii la caabudayay oo dhan waa la burburiyey. nin dhalinyaro ayaa sidaa sameeyey. markii la weydiiyey yani wuxuu yidhi yaa burburiyey, ilaahyaha yaa sidaa yeelay? ninkaa dhalinyarada ah oo u dhaaranayaan maqnaynay, saasaa la sheegay. asaga ayaa sameeyey, cid kale kolley ma samaynin, asaga ayaa sameeyey. saasay markaa yidhaahdeen. nabi ibraahim waa loo yeeray, marka waa la keenay. wuu amray markaa namruud, wuu amray, wuxuu yidhi hala keeno. waa la keenay. nabi ibraahim waa la weydiiyey, a anta facalta hada biaalihatina ya ibraahim, ibraahimow adiga miyaa ilaahyahanagi sidaa ku sameeyey? adiga miyaa jejebiyey? qaala wuxuu yihi nabi ibraahim bal facalahu kabiiruhum, asnaamta midka ugu weyn waa midka soo haray, kaasaa burburiyey oo ku sameeyey. haadaa oo kana fas'aluuhum, weydiiya in kaanuu yandiquun. hade weydiiyo yaa dhibaatada idin geystay dhaha, su-aala. kan weyne hadda joogo ee soo haray, su-aala. adiga miyaa ilaahyihii jejebiyey? yaa jejebiyey? goobjoog buu ka ahaa meesha. yaa jejebiyey? kuwa yaa sidaan yeelay? bal su-aala, bal hadday hadlayaan. dee ma asnaamtii baa hadlayo? wax hadlaya maaha dee. markii uu sidaa yidhi, ayaga naftoodii xoogaa baa galay baa la yidhaha. farajacuu ilaa anfusihim faqaaluu inakum antum addaalimuun. naftoodii bay isku laabteenoo waxay yidhaahdeen, hadda annagaaba marka horeba dee dhaalimiin ahayne, qof aan waxba sheegi karin, isna difaaci karin, wixii dhib u geystay xataa aan caddayn karin, maxaan horta u caabudaynaa? saasay is yidhaahdeen. marka shaydaankii baa markiiba qalbigoodii baadinimo ku riday. uma nukisuu calaa ru'uusihim, waa la dabagediyey, haddana caqligoodii waa la rogay. waxay yidhahen laqad calimta maa haaulaa yandiquun, inayna hadlaynin ilaahyahan waad ogeyd, ma hadlaane kan joogana waxba weydiin mayno.
dee kuwa kalena waxba noomayn sheegin inayna hadlaynin waad ogeyd adiga miyaa sidaa ku sameeyey markaasuu nabi ibraahim yidhi markaa qaala wuxuu yidhi afatacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacukum shay-an walaa yadurukum ma waxaad caabudaysaan waxaan waxba idiin taraynin nafcina aan idin anfici karin dhibna aan idiin keeni karin naftooda waxaan waxba ka difaaci karin horta ma dad kale wax u tarayaan uffin lakum walima tacbuduuna min duuni illahi afalaa tacqiluun adinka iyo waxaad caabudaysaanba uf baan leeyahay buu yidhi yacni wax cibaado mutaysta iyo wax la caabudo ma aha qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin markaasuu amarkii bixiyey markaa namruud wuxuu yidhi waa in la gubaa ilaahiyihiina waa yani waa inaan u aaragoosanaa waa inaan u aargudanaa waa inaan u aargudanaayo ibraahim maxaanu ku samaynaynaa waa in la gubaa dab ha la shida buu yidhi dab baa marka la shiday intii loo diyaarinayey nabi ibraahim yani dabka loo diyaarinayey namruud nebi ibraahim buu la dooday yacni waxaan aad sheeganayso horta aad noogu yeerayso maxay tahay buu yidhi ilaahay baan idinkugu yeerayaa inaad keligii caabudaan ilaahaasaa cibaadada mutaystay oo ilaaha aad noogu yeerayso muxuu yahay taasuu ku leeyay yani namruud wuxuu ku leeyay nebi ibraahim maxay tahay ilaaha aad noogu yeerayso ilaaha idinkugu yeerayo waa rabbulcaalamiin waa rabbiga wax dilo oo wax nooleeyo allaha wax dilo oo wax nooleeyo kaasaan idinkugu yeeraya rabbiya aladii yuxyi wa yumiit rabbiga aan idinkugu yeerayo oo cibaadada mutaystay waa midka wax dilo waxna nooleeyo namruud wuxuu yidhi ana uxyi wa umiit anigu wax waan dili karaa waxna waa noolayn karaa laba nin oo la xukumay oo dembi galay oo dil lagu xukumay ee xabsiga ku jiro in la dilo la doonayey ayuu yidhi soo saara mid buu yidhi hala dilo waa la dilay kii kalena wuu cafiyey iska bax buu yidhi ana uxyi wa umiit anigu wax waan dilaa waxbaan nooleeyaa kaana waan dilay kana waan nooleeyey oo waan cafiyey so anigu wax ma dilin wax ma noolayn nabi ibraahim markaa wuxuu yidhi fa ina allaha ya'ti bishamsi min almashriqi fa'ti biha min almaqrib ilaahay qoraxda wuxuu ka soo bixiyaa mashriq buu ka soo bixiyaaye adigu dhinacay u dhacda ka soo saar haddii aad wax disho wax noolayso ood awood leedahay ood ixye iyo yacni mid wax dilo wax nooleeyo aad tahay oo adigu aad ilaahnimo sheeganayso ilaahay qoraxda intuu ka soo saaray inta ka soo bixi adugu fabuhita aladii kafar fabuhita waxaa wareeray alladii kafara kii gaaloobay wallahu laa yahdi alqawma adaalimiin kuwa dhaalimiintaha ilaahay ma hanuuniyo subxaanahu watacaala xujadii markuu ku oogay xanaaqiisii buu sii xanaaqay kibirkiisii iyo duqyaankiisii buu kusii dheeraaday dabkii baa loo diyaariyey hala gubo buu yidhi ibraahim dab baa la shiday qaaluu bnuu lahu bunyaanan faalquuhu fi ljaxiim qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin saasuu leeyahay awaamirtii u bixinayay weeye u dhisa god adag dhisa oo guri ah ka dhisa dab badanna ku shida ku rida markaas hala shida buu yidhi dab god weyn baa la qoday dhismaa lagu sameeyey oo dhagax baa lagu dhisay markaasaa dab aad u badan baa lagu shiday ilaa heeladkiisa oo dhan loo dhowaan waayo hawadiisana lama mari karo agtiisa xataa wax ka dhowaan karaa ma jiro ha lagu rida buu yidhi dabkaa si loogu rida ayaa la garan waayo leanna haddii la qaado wax u dhowaan kara ma jiro dabka kulaylkiisa looma soo dhowaan karo waxaa lagu xiray markaa nebi ibraahim manjaniiq wax la yidhaahdo wiish baa lagu xiray
waktigaa waxaa ka ahaa yani wishka la isticmaali jiray wuxuu ahaa geed weyn baa lasoo qaadayaa, dhulkaa lagu taagayaa, markaasaa madaxeeda lasoo laabayaa, wixii la rabaa lagu xidhayaa, markaasaa xoog loogu sii daynaya, meel fog buu ku dhacayaa. markaa laamta yani geedkaasaa lagu xidhay, manjaliiq baa la yidhaha, laam cigaaleed, manjaliiqaasaa lagu xidhay. markaasaa nabiyullaahi ibraahim dabkii baa lagu tuuray. nebi ibraahim markii la xidhxidhay geedkii lagu xidhay ee la tuuray, hadalkiisu wuxuu ahaa xasbiya allahu wa nicma alwakiil, xasbiya allahu wa nicma alwakiil, siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariga uu leeyahay, nebi ibraahim kelimadii ugu dambeysay xiina ulqiya fi naar, markii naarta lagu tuurayay waxay ahayd xasbiya allahu wa nicma alwakiil, kaafigaygu waa ilaahay, mid la tala saartana isagaa u nicmo badan. dabkii baa lagu tuuray, ilaahay baa xifdiyey oo dabkii baa amar la siiyey. naartii waa la amray, ilaahay wuxuu ku yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. dabkan ilaahay awooddiisuu wax ku gubayaa. haddii laga siibo awooddan ay wax ku gubayso, dabku wax ma qabanayo, naartu waxba ma gubi karto. biqudratin awdacaha allahu fiiha, awood ilaahay dhex dhigay bay wax ku gubaysaa, iyo naartu wax ku gubaysaa. cuntadu waxay wax ku dharjinaysaa quwad ilaahay awood u dhex dhigeliyey. haddii laga siibo, si kasta hadduu qofku wax u cuno ma dhargayo. mididu waxay wax ku guysaa awood ilaahay uu wadeeco dhigay. haddii awooddaa laga siibo, waxba ma goyn karto. wax walba idanka ilaahay bay ku socdaan, ilaahay awooddiisay yani wax ku qabanayaan. dabkii ilaahay baa amray inayna nebi ibraahim taabanin, qabow inay noqoto, qabow weliba uu ku nabadgalo oon dhibaato u geysanin inuu noqdo. dabkaasu yaa ilaahay ku amray. dabkii markii lagu tuuro, lagu dhex riday, xarigii ku xirxirnaa unbaa gurtay, jirkiisii waxba ma taabanin, bal dabkii jannuu isu bedelay. halkaasuu ilaahay ku caabudayey, isagoo iska dhex tukanayo halkiisii ku nool oo ku cibaadaysanayay arkayaan. ayagii baa la tusay, gaaladii mucjizay ku noqotay. waa mucjizo weyn weeye oo ilaahay nabiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan uu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. ayagii waxaa ilaahay ku yidhi wa araaduu bihi kaydan, nebi ibraahim bay xumaan la dooneen. fajacalnaahum alakhsariin, fajacalnaahum waxaan ka dhignay alakhsariina, kuwa khasaaray baan ka dhignay. wixii ay lahaayeen oy dooneen inaan nebi ibraahim ay u geystaan ay ku dhibaateeyaan, ilaahay wuu ka badbaadiyey. waxaan waxba qabanaynin buu noqday. way ku guul daraysteen, wixii ay samaynayeen bay ku guul daraysteen, kaydkoodiina wax ma qabanin. nabiyullaahi ibraahim dabkii buu ka soo baxay. markaa bacdigeedna wuxuu go'aansaday inuu xagga shaam u hijroodo oo isaga taga dhulka. wuxuu yidhi innii daahibun ilaa rabbii sayahdiin, anigu ilaahay xaggiisaan u hijroonayaa, ilaahay dartii baan u hijroonayaa. gaalnimadiina iyo dalaalkiina iyo kufrigiina markuu dhibaatadoodii badatay yuu ka soo tegey. ardul ciraaq buu markaa ka hijrooday, xagga shaam buu markaa u hijrooday. nabi luud baa markaa la socdo, iyo zawjadiisii saara ayaa la socday markaas. fa aamana lahu luudun wa qaala innii muhaajirun ilaa rabbii sayahdiin, ilaa rabbii innahu huwa alcaziizu alxakiim. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala fa aamana lahu luut baa rumeeyey faqaala wuxuu yidhi nebi ibraahim innii muhaajirun ilaa rabbii anigu waan hijroonayaa ilaahay dartii baan u hijroonayaa innahu ilaahay huwa alcaziizu alxakiim weeye kii qaaliba oo xikmad u saaxiiba weeye wawahabnaa lahu isxaaqa wa yacquub ayaan u hadiyeynay baa ilaahay yidhi saarro awlaad maysa lahayn waxay ku weynaatay dhalmo la-aan nebi ibraahimna markaa muuna dhalaynin maray yacni da-doodu weynaatay oo nebi ibraahimna 100 u gaaray saarana ay 90 yacni ay kor u dhaaftay ayaa ilaahay awlaad ku irsaaqay oo loogu bishaareeyey sida qur-aanku nooga qisoonaya meelo badan oo ka mid ah fi suurati huud baa ilaahay nooga qisooday fi suurati daariyaat baa ilaahay noogu sheegay qisadii nabiyullaahi ibraahim marka ilaahay wuxuu siiyey isxaaq iyo yacquub isxaaq waa ina nebi ibraahim isxaaqna yacquub buu dhali doonaa nebi yacquub buu dhali doonaa wahabnaa lahu isxaaq baa ilaahay qur-aanka ku leeyahy wa min waraa'i isxaaqa yacquub isxaaqna waxaa ka dambeeya yacquub baa ka dambeeyo yacquub buu sii dhali doonaa weye taasaa loogu bishaareeyey in ilaahay duriye siinayo oo uu dhali doono ilmo uu dhali doonaa ilaahay ugu bishaareeyey waxaa bishaaro labaad oo haddana loogu bishaareeyey wajacalnaa fi duriyatihi nubuwata waalkitaab weliba duriyadaadaan ka dhigi doonaa ambiyada iyo kutubta iyo waxyiga aan soo dejin doono duriyadaadaan ka yeelaynaa baa ilaahay yidhi wa aataynaahu ajrahu ajirkiisi baan siinay fi dunyaa adduunyadaan ku siinay oo adduunyada cizi baan siinay waan xifdinay oo dhibaato o dhan baan ka xifdinay wa innahu fi laakhirati la min asaalixiin aakhirana wuxuu ka mid yahay dadka wan wanaagsan oo saalixiintuu ka mid yahay oo agtaanada darajada sare ku leh baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan ilaahay khaliilkiisii uu doortay buu ahaa wuu hijrooday markaa shaam buu hijrooday waxaa markaas zawjadiisii baa la socotay saara iyo ibnu akhiihi luut nabiyullaahi luut baa ilaahay rasuul ka dhigay saduum magaalo la yidhahdo qaryo la yidhaahdo oo urdun ku taallo dalka urdun halkaasoo yacni yaa loo diray markaas nabi luut qoomkaasaa loo diray oo rasuul looga dhigay qowmu luut nabi luut halkaasaa loo diray nabi ibraahim markaa wuu socday masar buu tegey masar waxaa joogay nin boqora oo jaa'ir ah oo nin kasta oo gabar wanaagsan ama gabar qurux badan wato wuu ka qaadanayaa hadduu yidhaahdaa gabadha waa walaashay wuu iska qaadanayaa gabadha ninkana wuxuu leeyahy iska tag hadduu yidhaahda waa xaaskaygina wuu dilayaa leanna ninku zawjadiisa ama xaaskiisa inuu ninka la qaato ama iska haysto ma ogolaanayo kuma sabrayo hadduu yidhaahda waa xaaskaygina wuu dilayaa nabi ibraahim buu u yeeray wuxuu yidhi gabadhan kula socoto maxay ahayd waa walaashay buu ku yidhi nabi ibraahimna markaa wuxuu fiiriyey ukhuwadii islaamka weeye labadooda iyo nabi luut oo uu kasoo tegay unbaa markaa mu'miniin ahaa marka wuxuu yidhi waa walaashay isagoo yacni walaalnimada islaamka fiirinayo wuxuu yidhi iisoo dir gabadha nabi ibraahim buu soo laabtay saaruu u yimid ninkan jaa'irka ah sidaasuu igu yidhi waxaana ku yidhi waa walaashay walaalnimada islaamkaana ujeedaa laba qof oo mu'miniin laba isqabtoo zawjeyn oo mu'miniina aniga adiga un weye wax hadda joogo ha igu beeninin hadalkaa hadduu ku weydiiyo sidaa ku dheh saaro mu'minad ilaahay rumaysay bay ahayd
rasuulka ilaahayna raacday ayay ahayd. way baxday, way weysaysatay, ilaahay bay bariday. waxay u tagtay ninkii daalimka ahaa ee jaa'irka ahaa bay u tagtay. wuxuu doonay inuu xumaan ku sameeyo, gacanta ayuu usoo taagay. gacantii ayaa qallashay oo asagoo dhan wuu dhacay. markay aragtay inuu rafanayo ayay ilaahay barido. waxay tiri, ilaahayow ha igu dilin, waxay ii odhanayaan ayadaa dishay. wuu fiicnaaday. mar labaad buu haddana isku dayey, sidii oo kale u dhacay. ilaahow ha igu dilin bay tiri. wuu soo kacay. mar saddexaad buu isku dayey, sidoo kaloo noqday. markii saddexaad markuu soo kacay ayuu u yeeray qoladii shaqaalihiisa ahayd. wuxuu ku yidhi, insi ama insaan iimiinna keenina, jinni baad ii keenteene. qof jinniyad ah ayaad ii keenteene, iga wada. gabar addoonana wuu soo siiyey, khaadimad ah, haajaro weeye, ummu ismaaciil. haajaruu soo siiyey, wada oo meeshii aad ka soo wadeen geeya buu yidhi. ayadoo socoto ayay timid Saaro, gabarna wadato oo la soo siiyey. nabi ibraahim bay u timid. waxay tidhi, rasuulka ilaahayow, in ilaahay gaalkii iga kaafiyey shartiisii soo ma ogid. sidaasaa dhacday bay tidhi. ilaahay buu ku xamdiyey subxaanahu watacaala. nabi ibraahim iyo xaaskiisii Saaro way soo baxeen. haajaro markaa waxay u hibaysay, nabi ibraahim bay u hibaysay Saaro. marka qudus bay imaadeen, baytulmaqdis ayay markaa yimaadeen. dhulkaa shaam bay markaa muddo badan joogeen. muddo yar bacdigeed waxaa markaa uur yeelatay Saaro, intayna waxba dhalin oyna ilmo yeelanin. haajaro ayaa uur yeelatay. nabi ismaaciil bay dhashay. waxay labada wiil ee nabiyullaahi ibraahim, ismaaciil iyo isxaaq. nabi ismaaciil baa weynaa horreeyey. haajaro ayaa dhashay. markaa wuu soo baxay nabi ibraahim. haajaro iyo wiilkeedii ismaaciil buu soo qaaday. wuxuu keenay markaa maka ayuu keenay. waxaa ilaahay ku amray subxaanahu watacaala in uu halkaa dhigo. haajaro iyo wiilkeeda ismaaciil inuu halkaa dhigo. maka oo cidlo ah, oo wax ku nool aan jirin, oo wax degan aan jirin, oo dhul iska buurahoo cidlo ah, biyo aan lahayn, dad una deganayn. halkaasuu markaa meesha xaramka dhexdiisa, kacbada agteeda, ceelka zamzam agtiisa geed u dhow ee meesha ku yaalay. waxaan oo dhan oo aan jirin dee geedka hoostiisa dhig baa la yidhi, ogana tag. halkaasuu keenay xoogaa timira iyo sibraar biyo ah ayuu markaa u waday, halkaa u dhigay. markaasuu ka tegey. haajaro aad bay ola yaabtay. waxay tidhi, xaggeed looga tegaysaa ibraahimow, meeshan cidlada ah oo qof la weheshadana uusa joogin, wax deganna aan jirin, biyona aan lahayn iyo baatoona, inteed nooga tegaysaa? shib buu ka yidhi. 3 jeer bay u dhawaaqday, inteed nooga tegaysaa ibraahimow, meeshan cidlada ah. markay 3 goor la hadashay oo uu la hadli la'yahay ayay waxay ku tiri, allahu amaraka bidalik, ma ilaahay baa kugu amray sidaa inaad halkaana dhigto ood meeshaa cidladaa nooga dhaqaaqdo? ma ilaahay baa kugu amray? qaala wuxuu yidhi nacam. markaasuu u jawaabay, ilaahay baa i amray sidaas. qaalad waxay tidhi haajaro, idan laa yudayicuna, haddaba ilaahay nama dayacaye. hadday amar ilaahay tahay iska tag bay ku tiri. markaa ilaahay nama dayacaye. nabi ibraahim wuxuu ka soo tegey
wax yar buu ka soo socday haajaro iyo ismaaciil wuxuu qaabilay markaa kacbada oo dee markaa aan dhisnayn oo yuu meeshii ay yani ka dhisan tahay oo meel yaroo taaga ahayd ayuu qaabilay ilaahay buuna baryay maxaa yeelay ilaahay wuxuu u sheegay in asaga iyo wiilkiisaa yar ay dhisi doonaan kacbada beytka ay dhisi doonaan halkana uu beytka ilaahay yahay ardada ugu khayrka badnaa meesha dhulka ugu khayrka badnay inay tahay marka beytka ayuu qaabilay wuuna duceeyey ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلهيو ذريتي دي وحان دي وادي عدلاء أو وحبا عن لهين عند بيتك المحرم لكن بيتك هذه حرمة لها أكتي سوي ربنا ليقيموا صلاة إني صلاة أوغان وعبادة هلكا كو أوغان بان إله وهلكا أودغي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ilaahayow dadka quluubtooda jeceel ugu rid dadka quluubtooda jeceel geli oo mid ay soo qaabisho beytkan iyo meesha ay joogaan ilaahu ka dhig warzuqhum min athamaraat ilaahu ku irzaaq thimaar ku irzaaq lacallahum yashkuruun inay kugu shukriyaan ilaahu ku irzaaq halkaasuu markaa intuu ku duceeyey ayuu nebi ibraahim tegey sham iyo halkaasuu markaa u laabtay iyo falastiin ayuu markaa ku laabtay markastana wuu imaanayey haajaro halkaa ayay iska joogtay ee canugeeda ku nuujinaysay markay timirta yarayd iyo biyihii ka dhammaadeenna way baahatay canugiina wuu ka baahday canugii baa ooyey markaa bacdigeed waa tii ay buurta safa iyo marwo ku istaagaysay marna safay tagaysaa marna marwo 7 jeer ayay halkaa waa sacyigan la samaynayo hadda safa iyo marwo dhexdooda ayay ordaysay marba buur ku istaagaysay bal inay wax aragto wax socdo ama inay dad aragto markaasay waxay maqashay shanqar canugii bay ku soo noqotay waxay aragtay meeshii canugu jiifay meeshii lugihiisa ahayd iyadoo biyo ay sidaa uga burqanayaan waa zamzamkii way biyihii zamzamkaha jibriil baa ilaahay soo diray subxaanahu watacaala halkaana wuxuu ka duray ceelka zamzamka la yidhaahdo markaasuu soo burqaday biyihii bay markaas inay intay u imaatay markaa ciidda dhinacyaha uga soo xirto ayay markaas yani gashay imaamu bukhaari baa saxiixiisa wuxuu ku warinayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yarxamullahu umma ismaaciil ilaahay ha u naxariiso nabi ismaaciil hooyadii waa ummuna haajara way low tarakat zamzam biyaha zamzam haddii iska dayn lahayd يعني لكانت زمزم عينا معينا زمزم waxay noqon lahayd il iska qulqulayso yani ardada korkeeda sidaas kaga socoto ayay noqon lahayd biyihii meeshii bay ku celisay oo ku xirtay intay dhinacyaha ka soo celisay meeshii markaa ceel bay noqotay biyihii hoos ayay markaa intii unbay ku ekaadeen markaa biyaha zamzamka way marka biyihii markay heshay halkaana ilaahay subxaanahu watacaala dad ayuu keenay qolo reer jurhum la yidhaahdo niman carab oo halkaa degaan reer jurhum la yidhaahdo ayaa markaa u yimid haajaro ayay u yimaadeen waxay yidhaahdeen inaan kula soo degnaan doonayna halkan aan soo degno ayaduna wehel bay u baahnayd waxay tiri soo dega halkaa ayay markaa la soo degeen nabi ismaaciilna iyaga ayuu ku dhex koray luqadii carabiguu bartay ku barbaaray ayaga ayuu ka guursaday mar uu weynaaday kadib asagoo reer leh ayuu markaa nebi ibraahim u yimid markaa bacdigeedna waxay markaa bilaabeen inay beytka dhisayaan oo dhismihii beytka ayay bilaabeen oo markuu kusoo noqonayo waa maray haajaro dhimatay oo nebi ismaaciilna uu wen yahay ayuu markaa u yimid nebi ibraahim beytka ayayna dhiseen weye waxaa insha allahu tacaala halkaa nooga sii socon doonto darsigeena labaad ee ku saabsan qisada nebi ibraahim ayaa noo sii socon doona insha allahu tacaala waa darsigii 7 oo ah yani qisadii ama axwaashii nabiyullahi ibraahim iyo dacwadiisii nooga warramaysay inta ayuu maanta noogu joogi doonaa wallahu subxaanahu watacaala aclam sala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin